waxaanu diidanahay oo xisbiga kaahu ka soo horjeeda in xafiiska Soomaaliland laga furo magaalada barakaysan ee Qudus Masjid al-Aqsa si cad oo bareere leh baan uga soo horjeeda ninna kaga gaban mayno annagu waxaanu aragnaa ictiraafka aynu helay inaanu ahayn full recognition اعتراف buuxa waxa la marka qaramada midoobay qowmiyadaha iyo dalalka ku jira dhamaan ku aqoonsadaan ee kursi laga siiyo xukuumadda xisbiga wadani waxay u dhaqmaysaa inay Soomaaliland heshay kursi aqoonsi buuxa oo nasiib dar aragtidaas dalalka muslimku qadiyadda Qudus waxa ku midaysan 750 dawladood ma qadiyad Falastiin waa qadiyad diineed oo xasaasiya oo iimaan ka waajibay oo tirada dunida 2 bilyan iyo 100 milyan kamid ah waa 25 dunida boqolkiiba 10 trilyan baa dhaqaalahoodu dhanyahay qaar badan baa si dad badan inoo caawiya oo mashaariic badan Soomaaliland ka fuliya iyagoo inaan aqoonsanay waa gaf inaynu dalalka carabta iyo dawladaha islaamka ku tiiqtiiqsano oo maagno ودليلنا أنه بطريقة هي سياسة دا وحنو لنا سياسة صبولة هي صوره صعد الله صبولة Somaliland لقوم يبكين كرو مدن مدحوي أنك بديرها يجوا عاديه نك بديرها اللوجة باهي واديك يو مدحك وحيرنا عقتي كبريد إن كتنا شيء إلى أنت diinta islaamka ee ummadan budliga waa markaad wax kala weydeen waxa tamariya tala idin kaga ururtay inaad gudmul caagashaan aqoonsigu waa laga soo horjeeda war aqoonsigu waa mas'ala gaar ah madaxweyne Cabdiraxmaan hadduu de aqoonsiga Qudus dhaafsaday hawshaga ummadda annaga noomu sheegno wuxuu wax shuruuda leeguma xidhine afkiisaanu ka haynaa hawsheega ummadda